waxay u muuqatay shacbiga halka deganaa waxay u muuqatay inay tashadaan oo isku yimaadaan laguma diidin taana laguma diidin waa runa tashada la yiraahdo shacbigayadana waa maxay hayday waa u fadhiyaan maanta kamid baanay dadka soo dhaweeyay ummadda way soo dhaweysay tashigoode dadka soo dhaweynaya aniga shakhsigayga ah waan tarxiibinaya oo waan soo dhaweynaya waxa mutamarkaana waxa la filayaa inuu ka soo baxo wax khayr leh oo ka soo baxo ummadda khayr leh oo uga soo baxo amnigu uu ku jiro istiqraalku oo ku jiro inuu ka soo baxo ayuu baa la filaya wax fitnada kama filayna in ilaahay subhanahu wa ta'ala fitnada ka haye in fitnada ka soo baxdo kama filayna anigu waliba halkan waxaan ku talinayaa oo ku soo jeedinayaa kuwa halkan jooga golayaasha ku jira ama guurtida ha ahaadaan ama wakiilada ha ahaadaan ama wasiirada ha ahaadaan ama agaasimayaasha ha ahaadaan ama mudiirada ha ahaadaan maamula xafiisyada maamula ee beesha ka soo jeeday iyaga naftooda inay ku beeraan talada kala qayb galaan kuwii dibadda ka yimid way imanayaan kuwa joogaana in iyaga naftooda ay ka qayb galaan oo shacbigaasi ay odayadoodii iyo garaadooda ay ku baaqeen way fiican tahay iyadoo markasta in la ilaaliyo ay tahay ragga salaadiinta iyo garaadada inay ilaaliyaan ay tahay magaca iyo sharafka ay ilaaliyaan oo kala ma xumaa leeyahay afka xun nabadna uu ka kaxeeya colaadana waxba kama talaaliyo حديث الإسراء وحكوا جري النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحيابه الله صلى بندقي حبينكي ليلة الإسراء وحكملها أو جبريل أتصي سلا إنه فيديو أنضا ونوكل الله تصي وحكملها جحر صغير يخرج منه ثور عظيم فجعل الثور يرجع إليه فلا يستطيع وحل تصي قد يرى دوبا ودبي وين وكسب بولي ودبي جوين أتكون قتل أو يلي وهذا أكون نقول كريواي كل رسول ما هذا يا جبريل محيي يقول كان جبريل محيي يقول ورسول وحوي يقول هذا الرجل العظيم وانك وين كلمة أي كصوب هذا حني كل ضمكوا على استيلاء وارني يوم حكى المدة كوجي إلى سادر هذا بورت أضيال مركز تجوجان بقى إلى إسكال عليهم ويان كلمة فرشحون حن إحمات كيريسة إلى إسكال عليهم وي شعبي قال كا دقن راس عانو دقن وما جيدو او يعني ملي شعبي مغالي كلي ولي ما يهي قبائل كان انت بدون لو سو قادايو انغا waxaan qolada reer boorama waa la yiraahdaa laakiin waa lagu afqabsanaya waa inaka qurux badan tahay magaca waqtigan xaadirka ee la joogo reer heblayda way ka qurux badan tahay shacbiga waxa soo martay boqolkii sanadood ee hore ee tagay dhibaato weyn oo culus oo ku baaba'een ayaa soo martay waa kuwii qarnigii hore waa waqtigiisii maxamed cabdilla xasan oo kacay waxay ahaayeen dadkii daraawiishtii ay ahaayeen sida ay sayidka u ajideen cid u ayiday ma ayna jirin daraawiishtiisii bay noqdeen wuxuu dagaal ku qaaday dowladda ingiriiska ee dhulka soo gashay ayuu dagaalku ku qaaday oo dagaal xarbi la galay iyaga waa laga baxay Soomaaliya kale xataa way kaga baxday sharaf iyo qiimo ay isaguna ku lahaa dagaalka gaalada ku qaaday shacbigii raacay jiida Allah subhanahu wa ta'ala ahaana sharaf iyo magac buu ku lahaa boqol sano maanta laga jooga qarni ayaa laga jooga waqtiga sayidku yaani laga xogronaaday reerkaasi aad buu u baaba'ay dhulka ayuu u kala kacay waxan soo gala wax bari u kaca wax meel u kaca laakiin haddana ilaahi bixamdillahi ta'ala ilaahi waa soo ururiyay boqolkii sanadood dambe maanta laga joogo wuxuu noqday shacbi ballaaran oo weyn oo sidii bariga horeba Soomaalidu waxay oran jireen dhulbahantan baa laga helaa bariga inta Cabdilla Xasan intaan ka kicin beel 3000 oo faras markii ay ka soo boodaan dhulbahanta la baa la oran jiray odayadu oran jiray laakiin taasayidku kolku u jabay reerku aad buu u baaba'ay haddana bixamdillahi ta'ala ilaahi uu soo nooreeyay reerkii min bacdi uu soo nooreeyay oo farcamay hadday tacliin tahay hadday maal tahay hadday xoolo tahay intaba way ballaadheen ilaahi ha u siyaadiyo in ilaahi u siyaadiyo jecelna ila walaalaha kala muslimiinta ah cid walba in ilaahi u siyaadiyo wixii naqsi iyo dhibaato aan aw kaay laakiin dadku waa inay ku cibro qaataan dhibaatooyinka soo maray waa inay ku cibro qaataan cibro weyn ay ku qaataan boqol sanadood baa maanta imika laga jooga maalintii 1922 ayuu jabay sayidku maanta waxaan joognaa 23 baan joognaa waa boqol jib weeyeen boqol guuro way taariikhduna way isbedeshaa ama dhibaatay kugu timaado ama ilaahay kor ka qaada ilaahay imtixaanka ka ayo imtixaanka hore soo maray inuu ilaahay ku celiyo kama barina subhanahu wa ta'ala ha ka hayo iyaga iyo ummadda kale ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ka hayo waxa kolka jirta jiida imka dhibaatadaasi ay ka taagan tahay
dawladduna runtii way ogolaatay inay mutamarkaa yeeshaan waa ay ogolaatay dadka oo dhanina way soo wada dhaweeyo dee ummad dalteedii ka tashanaysa waa la soo dhaweeyey oo cid ka xun anagu ma maqal oo maxay shirka u qabsanayaan cid ka xun leh ma aanan maqal iyagana waxaa habboon inay yacni ilaaliyaan nidaamkoodana ay ilaaliyaan dhaqankooda suubanna ay ilaaliyaan fatrada ay iska ilaaliyaan dadku intuu waqtiyada xuruubaha oo kale ah waxyaabaha fasaadku way soo dhex galaan khamradaha soo badan karta xashiishadaa soo badan karta oo kolkaanu nidaam meeshaasi jirin intaana iyaguna inay is ilaaliyaan oo isdhowraan oo ilaaliyaan waddankooda ay ilaashadaan wax meesha ku jira weeye waxaan dib ugu noqonayaa oon leeyahay oon talahaan iyaga ugu soo jeedinayaan mu'tamarkoodaas inuu mu'tamar khayra noqdo mu'tamar colaadi ka soo baxda inaanu noqonin reerkaa u xiga ee reer sheekh isxaaqa ilaah bay igu oga anigu kuma ogi wax calool xumo ay reerkaa u hayaan marnaba kama aan maqal dadka waxaa la arkaa reerkaa meel kastay joogaan si gaaray u taxgeliyaan waxaan odayada nidhahnaa war iyagaabad nooga runtiin baan nidhaa iyagaad nooga runtiin ayaan nidhahnaa markaas ragga kooda waxgaradkii waxay yidhaahdaa dee idinku waad nala dagaalanteen oo dagaal baad nagu qaadeen oo dawladdiiba mararka qaarkood waad nagaga darmaydeen iyagu weligoodba xabad naguma ridin bay xabad naguma ridin bay waa runtii dawladdiisi yaad barre qadkeydii aynu inagu la dagaalamaynay xarakadii snm aynu la dagaalamaynay mararka qaarkoodna dawladdaba aynu ka horreynay ee aynu lahayn dhulka iyaga de ha soo gelina meelihiina ku ekaado annaga hana soo gelina oo dawladda aan garab gallay iyagu wax dawladda ay u yeesheen xarakada snm waxay u yeesheen oo dhibaato ah intii dawladdu ay ku jirtay uma ayna yeelin kolkaasay odhan jireen kolkaan mudacayska u tagnay idinku waad nala dagaalanteen annagu iyagu midalaba dagaalameen waxba nama dhex yaalaan waxaana nooga muuqatay xataa shirkaa burco kolkii la galayay ayaga ayaa naga facfacroona annaga oo soomaalinimada iyagaa nagaga adkaa shacbigaa reer laascaanood baa nagaga horreeyey waxay raggii ka yimid qiimaha SRC-da raggii yaa joogay salaadiintii baa joogtay garaadadiiba yaa joogtay beel ka maqnayd haba yaraatee ma jirin arrintaa maxaan leeyahay dadka qaarkii baa yidhaha maba annaan ogeyno waa lana qabsadano ciidan walbaa na qabsadaba annaga lana soo galay snm soo gashay oo aanu nidhahnaa dharihiina way naga qaateen aanu nidhahnaa iyo macuusihiina naga qaateen aanu nidhahnaa iyaga lamaba soo gelinba cidiba ma soo gelinba nabad iyo caan unbay ku ahayd shirkii sheekh kadaalik waa la wada joogay beesha ugu xoog badan bay ka mid ahaayeen dadka heshiisiinaysa shirkii boorama hayaay maasha allah way naga xoog badnaayeen annaga way naga xoog badnaayeen waa nagaga cadadkaayeen dawladnimadii kolkii la dhisana qaybtooda way ka qaatay aniguna dadka oo dhan wuxuu arkayay dawladda somaliland waa loo wada lahaa gobollada si unbaa loo wada dhisay 10 sannadood u dambeysay reer gobolka laascaanood dawladdu aad bay u dhistay waa kii lahaa wasiirkii macdinta iyo biyuhu lahaa dawladdii soomaaliyeed iyo dawladdii ingiriisku laba ceel bay qodeen buu yidhi inta somaliland aan joognana 3 iyo 4 ceel baan qoday buu yidhi waa wasiirka macdinta iyo biyaha oo maalduwito uu ka warramayay iyuu sheegayay markaa horta waa laga qayb gal horumarkii gobollada oo dhan waa horumar way gaadheen cid waliba maanta way ogtahay siday waa la ogaa waxaa dawladdii hore siyaad barre la odhan jiray aqalka wasaaradda maaliyadday dawladdii dhistay oo aqalkiina gubashadiibuu raacay intii ka dambeysay inteeda badanna shacbiga boodama yaa dhisay gobol walbana sidaasuu u dhismay nabadna waa lagu calamaalay nabadna waa lagu ahaa wax dhibaato aana ma jirin anoon ku dheeraanaynin khudbadayda oon uguba talagelin inaan dheereeyo aan ugu talagelin waxaan kusoo gunaanadayaa hadalkayga aan kusoo gunaanadayaa reerkaa walaalaheena ee halkaa ku shiraaya waxaan u baryaynaa ilaahay subxana watacaala tawfiiq waafajin inuu ilaahay waafajiyo oo khilaafku dhexdooda aanu ka dhicinay horta dadku kolkay is waafaqaan xumaani kama soo baxdo haddii ay yidhaahdaan Soomaaliland halkeena waanu ku caalamaalay oo meesha aan ku caalamaalay oo nabad baynu ku helay oo horumar baynu ku gaadhnay oo cahdi baynu gallay oo ummadan baynu cahdi la gallay oo burcaynu kula gallay oo sheekh baan kula gallay oo booramaan kula gallay oo madaxdii saraynu ka mid noqonay oo wasiiradii baan ka mid noqonay sideen ahaana hadday yidhaahdaan hanii'an way habooyin oo soo dhaweynayaan haddii ay yidhaahdaan ayaha iyagaan ka tashanayna ay yidhaahdaan oo walaalaha iyaga puntland baanu anagu raacaynaa hadday yidhaahdaanna iyaga oo xoray anu ku dacniin maayo haddii ay yidhaahdaan beel weyn oo daraawiishtayaa baanu ahaan jirnay beelaha kalan ayaan la midnahay gooni baanu isu taaganaa hadday yidhaahdaanna waxba anu ku dacniin maayo xaqa bay leeyihin laakiin midib baan ka digay anigu reerkaana tale aanu soo jeedinaya adoo cabdillahi ibn cali jawhara da'deeduna ay tahay maanta 83 da'deeduna ay maanta tahay oon dhayal u hadlaynin reer laascaanood waxaan leeyahay qadiyadihiinaasi haddii Soomaalilandtiina adeysataanna idinka oo xor leh oo xaq leh labada arrimood ee kala haddaad goosataanna waxaan idinkula talinayaa
sida nabad iyo xasilooni iyo bashbash iyo barwaaqo aad u gaadhaan iyo waxaad doonaysaan idinku xaqiiqoobo reerkaa reer Sheekh Isxaaq ama habar jecla la yidhaah ama habar yoonis la yidhaah garxajis ama arabka bari la yidhaah arabku hadda moogtiin dhulbaanta arab baa dhalay arab yaa dhalay faaduma cabdullaahi arab baa dhashay arab Sheekh Isxaaq awoobu yahay arab dhulbaanta saddexdaa reer ee jiidda idinku soo xiga nabadooda adkeeya oo dhulka iyaga u gaarka ana ha faragelinina waa gardarro dhul iyaga u gaar ah haddaad faragelisaan dhulka ay idinla degan yihiinna ku taxgeliya oo arrinkaba wax ka siiya oo wada deganahay waar kaale nala eegilaa haddii aad ku taxgelisaan haddii aad ku faragelisaan dhulka iyaga u gaarka ah ay reer Sheekh Isxaaq u gaar ah haddaad ku faragelisaan waa gardarro cad ka uu idinla degan yahay aad wada degan tihiinna haddii aad ka taxgelin weydaanna waa gardarro badh ah gardarrada badhkiina way buuxsantaa baa la yidhi hadduu gabadhiisa yidhaah baa layidhi dalqad badhkeed baan ku furay hadduu yidhaah baa layidhi way iska buuxsantaa baa layidhi marka waxaan kula talinayaa inay iska daayaan reerka reer Sheekh Isxaaq goboladiisa oo gaarka ah aynu waxba ku faragelinin kuwa ay wada degaanna aanay ku wada faragelinin kooda ay maxay hayde ku ekaadaan sidaa dawladuba ugu ogolaatay tashada la yidhi ay tashadaan mar labaad waxaan uga digayaa shirkaa uga digayaa oo kulana talinayaa intay karaan ilaahay ha ka haya dhibaato inay ka fogaadaan colaad iyagiyo dagaal dhex mara iyagiyo dowladda Soomaaliland dhex mara inay ka fogaadaan dagaal Puntland iyo Somaliland dhaca oo dushooda ku dhaca inay ka fogaadaan dagaal dir iyo daarood ka dhaca ama dir iyo irir ka dhaca oo dushooda ku dhaca waayo waxaan maqlayay labada meelood baan maqlay aan dadkuna wada maqlay rag daarood oo leh mareerka iyaga daarood hadaan u gurman weynoon maanta ka dhicin weynaysaa waan maqlay kuwa irir Soomaali gaarsiisan ama dir bale oo anagu maxaan ku fadhiyaynaa mayaanaan dhiig lahayn anaguna waanu ka qayb galaynaa subxaanallah soo fududii u weynayd ma saddexda arrimoodba hal la iska ilaaliyo qabiil foolxumo wuxuu ugu foolxiyay kulku halka gaarana ee la yiraahdo magac dir iyo daarood u gaarana waa foolxumadii ugu weynayd weey wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi لا ينتهين أقوام يفخرون من رجال إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع النطل بأنفها ولا جوك سنبول قبيل كلا قفاني ريه بالبان أو لا جوك سنبول أو لا يكونن أم وحي نقون يا المال قيامها أهون على الله إلهي كوي كجل ليت بدن حقرات بدن من الجعلان أضيف الفول التي تدفع النطل في أنفها وضيف الفول حار والوالك حار كسنك وريحية تاوي كحمان قبيل الفول حمد يسوى هالكا وهالكاوي إن أكرمكم عند الله أتقاكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إلهي وحيد كده الشعوب جود وواوي سواء قارة آسيا قارة أفريقيا قارة وقبائل أي قبائل هذه حكمة إلهي ميشن كجرتها هذه أمضى أوردن أي اسكوا ذا اكتحي بل واحد يكتها eeshiyaanku si gaar u eegay qolyaha ka sokeeya si gaar u eegay arabtu si gaar u eegtay arabta nafteedu si ma wada aha yamantu si gaar u eegtay masaariduna si gaar u eegtay afrikaankan eeg inagu sabaynu eegnay ka yar dhaqaaq bay dhabiye jiida ila Tanzania gaad sidaa u sii soco meeliba meel way ilaahay uu kala duway waa aayaadka ilaahay waqtiga falsinatu alwan waa xikmad ilaahay wuxuu hadii isku wada sii deysan yihiin ilaah madax madow wada noqdaan sida loo kala bixilaa sida isku garan lahaa marka hal tacaaruf isku garataan waa imka dibadda hadaad u baxdo qofka Soomaaliga sidaad aad eegto sida ku seego labada indhood baad ka garanaysaa inuu Soomaaliya ama ha casaado ama ha madoobaado waa xikmad ilaahay weeyaan kolka waa xikmad ilaahay u dhigay weey marka xikmadda ilaahay subhanahu wa ta'ala إن أكرمكم عند الله أتقاكم وحاسي وحيتاي قبائل كاد شيء إنسان يا شعوب تالك اللي يهي هذا إيشيا تاي هذا أفريقيا تاي هذا يوروب تاي هي قبائل كان الله إذا كان جاي وحي أنتم موذين لتعارفوا حسكوا قرتان هيبتها الله يسكوا قرطو هيبتها الله يسكوا قرطو إن أكرمكم عند الله أتقاكم كيدكم ماموس وين إلهي أتيسا وكيدكم تقوى بدن إذنكم عبس بدن أنوي وحكى له ضدكم أو سنيري هي ما يجرن أو تعلموا أي لهذان كفاءة كل كي هذا يدرس لنا هبين كدوسان آخرين النبي يجيب كل جلسين كل كي علماء ذو لح جلين ولح جلين مجلس ثاني كفاءة نصب هنا مجلسه كفاءة حرفة هنا وحجرا معها هاي كفاءة نصب هنا وحجرا معها غير كما في عنا غيرنا كما وناكسنا تقوى الله حرفنا كفاءة ما له ما أنت من دوك حالية أيها بري تاجر لقوكرة
إنما الكفاءة كفاءة واحد هاي ودينتا iyo xornimada imka adoomihii ma jiraan waa diinta wa salaamatu min al-uyub iyo ceebta oo laga nabad gashay qofku jiraan biyo juusaan iyo waxyaabaha aan lahayn wax kale oo dadka islaamku inay isku fiirfiiriyaan ma jirtaba haba yaraatay xaqii guurka ku leeyahay inay nasab isku fiirfiiriyaan ma aha inay xirfo shaqo xun u haystaa isku fiirfiiriyaan ma aha ilaahi agtiisa cabsidu ka ilaahi ugu dhow waa ka cabsida agtiisa leh umma subhanahu wa ta'ala iyo ugu dhow waxaan soo gunaanadii hadalkayda oo siikum nafsiya bi taqwallah ilaahi taqwadiis ilaahi laga cabsado dadka walaalaheena iyaan la oranin dad baa waxaan ay soo gaaray in badan soo gaaray xaji abdullaahi yow ha ka hadli ha isku gubtaane ha isku baaba'aane hadii uu weysaysanaya ninka sidaali farsan soo digu weysaysanaya asmaray dadka islaamka waa looga baa dhibaatada waa looga baa ilaahi dadka muuminiinta wuxuu ka dhigay dad walaala oo ikhwa ayuu ka dhigay acdaabi kol hore wada ahaayeen binicmati illaahi tacaala oo dadka muuminiintu walaalo oo ku noqday hadii colaadi ay hurto meel dabduu horo meel ku joogsan yaqaan laba yaqaan hadaan dad ilaahay u bixinin colaadi haday hurtana meel ku joogsan doonto laba yaqaan ilaahay waxaan ka baryaynaa subhanahu wa ta'ala aan ka baryaynaa inuu wadankeena aamin inooga dhigo inuu mad walaala inaga dhigo inuu ilaahay naga hayo khalkhalka iyo khilaafka in aw naga hayo دم داف إيا مغفرة أن نريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله وحونا أكسن هدي أن سوجي لي وأن صاح لنا ومن الله تعالى إلى حيته بتوفيقه هدي أن ما لك دعينا العفو والمسامحة ولبني 83 سنة معذرة المقبولة المستحسنة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.